marka hore aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa. Huurshe waa meeshii markii aanu nimid xafiiska aan ka bilownay booqashadeennii ama shaqadeennii kooban ka bilownay. waxayna ahayd waa magaalo runtii istaraatiiji ah, waxyaabo fara badan aan ku doorannay xilligaas isaga ah. waa magaalo culummo, waa magaalo diineed, waa magaalo qiimo badan ku leh gobolkan iyo guud ahaan galmudug iyo soomaaliyaba. waxaa farxad noo ah oon maanta ku faraxsannahay mashaariicdii aan maalintaas ka dhagax dhignay si la isu kaashaday iyo si la yeelayba inay hirgashay, oo mid ugu muhiimsaneed oo saldhiggii booliiska ah aan galabta ka xali jirnay oo furnay. sharaf bay noo wada tahay innaga iyo dowladda iyo reer Huursheba. reer Huurshe waxaan ku bogaadinayaa oon kuna dhiirigelinayaa halkaa ka sii wada. markii dowladduna waxbaad idinla qabanaysaa, idinkuna contributionkiina iyo waxqabsigiina iyo isku tashigiina sii dhaqaajiya. dad bulshadu waxna way qabsataa, waxna waa lala qabtaa. dhammaan runtii badan baan u haynaa bulshada reer Huurshe. waxaan kaloo ilaahay ku mahadinaynaa meesha maalintaan nimid arrimihii dib u heshiisiinta oo aan u nimid inay taabagal noqdeen, halkaasna ay dib u heshiintaasi ku ansaxday haba yaraatee aan waxba ka soo noqonin. taasna waxaan ku ammaanaynaa dadka qiimaha badan ee reer Huurshe iyo deegaanadii kale oo arrintaas ay kula dhacaysay ama ay hawshaasi la lahayd. laba codsi oo halkaa laga soo jeediyey. waxaan rabaa horta taliye bulshada iyo deegaanka uu ka shaqeynayo ay ammaan u hayaan oo ay u dalbayaan in la dalacsiiyo. waa taliye fiican, marka siduu dowladda ugu fiican yahay bulshada, waxaan rajaynayaa dowladdana ugu fiican yahay. annagana waa dalacsayn haddii la yidhahdo. reer Huurshe baabuurkii aad codsateen oo saldhigga aad u codsateen, maadaama adinka iyo dowladdiino iskaashanaya intaan oo saldhigga intaa la eg hawshiisa laga soo baxay oo la qabtay, baabuurkiina waan ka qaadnay, hawshiisa waana keenayna insha allah tacala. aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. waxaan leeyahay halkan sida loo sheegay waxay isku xirtaa magaalooyin badan, waxay isku xirtaa meelo aad muhiim u ah. marka si gaar ah amnigeeda ha looga wada shaqeeyo, hala la shaqeeyo booliiska iyo hay'adaha amniga insha allah.